dhibaatooyin ka dhasha isbeddelka cimilada waxaa ka mid ah abaaraha soo noqnoqonaya iyo barabaxa ka dhasha abaaraha oo soo badanaya. abaar waa dhacdo rabbaani ah oo ka dhalata waayista ama yaraanshaha roobka ee deegaan gaar ah, taas oo sababta dhibaatooyin qabsada dadka, duunyada, dugaagga, dhirta iyo guud ahaan nolosha ka jirta deegaankaas inta lagu guda jiro abaarta. waayista ama yaraanshaha roobka ayaa wuxuu keenaa in ay guraan ilaha iyo kaydadka biyaha sida webiyada, durdurrada, ceelasha, barkadaha, waraha iyo wixii la mid ah. markii ay biyuhu yaraadaan ama laba waayo, waxaa adkaanaysa in ay dhirtu baxdo, duunyada iyo dugaaggu ay helaan daaq, ugu dambayntiina dadku ay waayaan cunto. abaaraha waxaa loo qaybiyaa dhowr. abaarta koowaad waa abaar jawi ama abaar cimilo. abaartan waa abaarta ka dhalata markii roobka la waayo, waana midda horseeda abaaraha kale. abaar biyood ama biyo waa waxay ka dhalataa yaraanshaha ama gurista ilaha iyo kaydadka biyaha sida